looga kasta oo la design garaynayaa waxaa muhiim ah inay ku base garaysnaato factor. cashirkeena labaad waxaynu ku baran doonaa software-ka Adobe Illustrator. ka hor intaynaan sharxin software-ka waxaynu u baahannahay inaynu ogaano farqiga u dhexeeya factor image iyo pixel image. si aynu u sharaxno ama u eegno farqiga guud ee u dhexeeya labadan waxaynu u baahannahay inaynu soo kicino labada application ee Adobe Photoshop iyo Adobe Illustrator. marka u horeysa waxaynu eegi doonaa software-ka Adobe Photoshop. halkan waxaynu ku haysanaa image-kaasi markuu inaga fog yahay quality-ga image-ku si fiican buu u muuqdaa markuu image-kaasi inaga fog yahay. waxaanu sameynaa inaynu soo zoom garayno image-keena. markastoo inuu image-keena soo zoom garayno waxaad arkaysaa image-ku wuxuu sameynayaa jajab. haddaan kusoo dhaweeyo waxaad arkaysaa image-ka markastoo aynu xoog usoo zoom garayno ama markastoo aynu xoog usoo dhaweyno waxaynu arkaynaa pixelskii uu ka koobnaa imagesku. pixelsku markaa wuxuu noqonayaa rectangle-ka yar ee imika inooga muuqda image-kani. kamarada markay shoot-ka qaado image-ka ama markay kamaradu ay sawirka ay qaado waxay sawirtaa waa pixelska aadka u yaryar. kadib waxay sameysaa kamaradu inay isku geyso pixelskaasi. pixelskaasi wuxuu sidaa waa information-ka ama wuxuu sidaa waa color information buu sidaa. image-ka markay isku geyso ayuu soo baxaa muuqaalka saxda ah ee image-kaasi. haddaynu xoog usoo zoom garayno waxaad arkaysaa image-ka waxa ku dhacaya waa jajab. waxaan sidoo kaleeto aynu eegaynaa image-ka hadaynu zoom garayno image kale oo kan la mid ah hadaynu soo kicino Adobe Illustrator. image-kan wuxuu la mid yahay waa image-kii Photoshop-ka oo kale. haddii laakiin aynu isagana soo zoom garayno waxaad arkaysaa sidaynu doonayno soo zoom garayno sawirku waa sawirkii waa isku sees laakiin Adobe Illustrator waxaad arkaysaa image-ka inaanu samaysmayn wax loo yaqaan inaanu jajabhaynin. farqiga guud ee u dhexeeya waxa weeyaan Adobe Photoshop-ka sawir kasta ama design kasta oo lagu sameeyaa wuxuu ku base garaysan yahay waxa loo yaqaano pixels. taas oo macnaheedu noqonaysa haddii image size-kiisaas la weyneeyo ama tusaale ahaan size-ka lagu sameeyo Photoshop-ka size ka weyn haddii lagu sameeyo image-kaagaasi waxa ku dhacaya inuu jajabo. ama design ha noqdo ama logo ha noqdo ama image ha noqdo. laakiin Adobe Illustrator wuxuu isticmaalayaa qaab ka duwan. Adobe Illustrator wuxuu ku base garaynayaa shay kasta oo lagu design gareeyo wuxuu ku base garaysan yahay waxa loo yaqaan mathematics. marka shaygu size-ku doona ha noqdo intuu doona ha leegaado marnaba size-kiisaasi ama sawirkaasi ma sameynayo waxa loo yaqaano inuu noqdo low quality ama inuu sameeyo jajab. farqiga guud ee labada application u dhexeeya Photoshop waa software sameeyo waxa loo yaqaano pixels. pixelskana waxaanu ku sheegnay waa dhibcaha yaryar ee image-kaasi uu ka kooban yahay. halka Adobe Illustrator uu yahay software ku base garaysan mathematics isla markaana sameynaya waxa loo yaqaano factors. labada image sida inooga muuqata kan waa software-ka Adobe Illustrator. haddaynu soo zoom garayno waxaad arkaysaa image-kani wax jajaba muu sameynin. laakiin application-ka Adobe Photoshop haddaynu isaga soo eegno waxaad arkaysaa image-kaaga markasta soo zoom garayso waxaa ku dhacaya inuu jajabo isla markaana pixelska uu ka koobnaa ay soo baxaan. Adobe Illustrator waa software awood badan ku leh marka laga warramayo logo design-ka, shape design-ka, typography-ga. sidoo kaleetana waa software aad ugu caana xagga drawing-ka. waxaanu eegi doonaa awoodaha iyo speed-ka dhaqsaha ee uu ku sameeyo logo design-ka marka laga warramayo Adobe Illustrator-ku. waxaanu u baahannahay inaynu design garayno ama inaynu ku sameyno logada Premium Bank. waynu wada naqaana logada Premium Bank. waynu eegi doonaa logada Premium Bank asalkeedu halkay ka timid. laakiin waxaynu ku horreyn doonaa qaabkay u samaysan tahay inagoo isticmaalina software-ka Adobe Illustrator. waxaan u baahannahay loogada inuu sideeda u design garayno textiga hadday tahay iyo hadday tahay loogada ama waxa loo yaqaano icon-ka. waxaanu marka u horeysa design garaynaynaa caleen ka mid a caleemaha ka kooban tahay loogadu. waxaanu soo qaadanaynaa circle. waxaanu ugu horreyn design garaynaynaa waxa weeyaan waa area-dan hal caleen oo ka mid ah. waxaan leeyahay markaa caleentaas waxay ka kooban tahay waa circle. waxaanu iska xidhaynaa marka horeysa filka waxaan leeyahay none. waxaanu keliya furaynaa waxa loo yaqaano stroke. stroke waynu baran doonaa. colorka white nooga dhig. waxaanu iska xidhaynaa markaa filka uma baahnin. waayahay waxaan markaa soo qaadanaya waxa weeyaan waa laba circle. circle koowaad waxaan dhigayaa xagga sare.
circle labaad waxaan u baahanahay inaynu ka dhex goyno waxaan isla koobiyeynayaa isagii aan taabanaya keyboardka alta uma baahnin markaas technical inaynu faahno qaabkaynu sameeyno laakiin waxaan u baahanahay speedka iyo qaabka uu sameeyo double straight logooyinka waxaan hadda haysanaa waxa weeyaan waa laba shape waxa arkaysaa halkii circle-ka ahayd in caleenti ku base gareysan tahay waxaan dooranaa labadooda toolka waxaan soo qaadnaa loo yaqaan shape builder waxaan soo qaadnaa toolka loo yaqaan shape builder waxaan leeyahay keyboardkayga alta deedna waxaan ka goynayaa labadan intii dheeraadka waxaad arkaysaa circle-kayga waxaan kala soo hadhay waa caleen ama caleen ka mid a caleemaha labada caleemood isma leega waxaan doonanaa direct selectionka in yar baynu xaggan ka durkinaynaa si ay labada caleemood iskugu fadhiistaan in yar baynu hoos soo dhigaynaa hadda waxaanu dhamaystirnay waxa weeyaan waa caleen ka mid a caleemaha ay ka kooban tahay loogadu uma baahnin inuu dhammaantood wada samayno keliya waxaynu u baahannahay caleentaasi aynu samayno oo keliya inaynu dhowr jeer koobiyeysano waayahay ugu horeyn waxaan soo furanaya waxa weeyaan labadii waxaan ku samaynayaa blacka strogana white ka dhig okay stroke waxaan ka dhiganayaa white waxaan leeyahay stroke size-kiisaan kordhinayaa stroke waxaan leeyahay outside-ka dibadda ha uga baxo stroke imika inside ku jira wuxuu hadda aynu ku fit garayna waxa weeyaan waa caleentii waxaad arkaysaa liidkii madow wuxuu ku dhacayaa spacekii kala go'naa ee caleentu halkii ka kala go'aysay waan arki doonaa qaabkanu farsamayn doono laakiin marka hore waxaan leenahay labada color isweydaari stroke ha noqda cadaanka size-ka stroke-na yareen kordhino waxaan dooranayaa toolka loo yaqaano rotate tool right click c rotate tool deedna waxaan dooranayaa buttonka halka ugu hooseysa ee loogadu ay ku fadhido click baan siinaya waxay soo baxaya rotation dialog boxkii waxaan hadda kordhinayaa oo fiirso angleska kii koowaad waxaan deedna dib baan u celinayaa waxaad arkaysaa loogadii wuxuu iigu samaysmay wuxuu ii sameeyey duplicate weli duplicate muu sameyn laakiin loogada tii hore halka ku fadhiday uu ka soo qaaday waxaan u soo durkiyey caleentii labaad deedna waxaan leeyahay copy okay haddaan idhaahdo tii horun bay ranayaa laakiin waxaan leeyahay copy then kadib waxaan odhanayaa control D waxaad arkaysaa caleen saddexaad afraad shanaad that's it Adobe Illustrator qaabka uu shaqeynayaa waxaan hadda sameynay waxa weeyaan waa caleentii colorku ka duwanaado colorkii markaynu dib u design gareyn doonaa laakiin waxa muhiim ah waxaanu haysanaa shantii caleemood ee loogadu ka koobneed inagoo isticmaalayna duplicate waxaan leeyahay aan dibadda uga dhinac uga saarno si aan arki karayno labada isku barbardhigi karayno loogada tan baynu dusha soo marinaynaa loogada waxaad arkaysaa tan waxaa leeyahay xagga dambe loogooyinka qaabka u kala sarreynayaan ayuun baynu kala horreysiinaynaa tan maa leeyahay xagga dambe mar tanna way ugu dambeynaysaa waayahay labadooda waxooda waynu highlight garaynaynaa waxaanu tegaynaa objectives waxaan tegayaa path deedna waxaan leeyahay outline stroke waxaan soo qaadanayaa toolka loo yaqaano shape builder shape builderka markii hore aynu calan sameynay waynu arkaynay aynu soo zoom garayno minus baan ka dhigayaa waxaan marinayaa intaa hoos oo dhan because waxaan u baahanahay areadan cad oo dhan inaynu cut garayno aynu ka goyno simple waxaad arkaysaa uu gooyey intana aan raaciyo waxaad arkaysaa dhammaan white-ka meesha cad oo dhan waxaynu u baahannahay inaynu ka saarno si ay u kala go'naato caleemuhu oo markan hore stroke aynu meesha uga saarno aynu stroke aynu meesha uga saarno dhammaan imageska weyn kala goynay waxaan tegayaa propertieska deedna waxaan leeyahay one shapes kaga dhig loogadii imka white bay noqotay waxaan soo qaadanayaa eyedrop colorka oo colorka si aynu uga qaadano waxaan ku dhufanayaa click hadda waxaynu sameynay daqiiqada yar gudahood loogadii waxaad arkaysaa labada loogo waa isku mid haddaynu tan soo zoom garayno waxaad arkaysaa loogadani waa pixel asalkeedu marka hore image buu ahaa waynu soo dhex dhiganay Adobe Illustrator laakiin loogadan inagu iminkaan design garayna haddaynu soo zoom garayno waxaad arkaysaa waa factor images waana high quality marka waa farqigii u dhexeeya pixel imageka iyo factor imageska waayo guud ahaan loogada waan sameynay waxaan u baahanahay inaynu sameyno tagastiga loogada Premium Bank qoraalku ku qoran tahay waxaan soo qaadanaynaa tagastiga deedna click baan leenahay waxaan ku qoraynaa loogada Premier Bank fontka already waa fontkii ugu dhawaa haddaanu iyadaba aanu ahayn haddaynu size-kiisa yara weynayno aynu store dhigno waxaad arkaysaa loogada Premium Bank waa tagastigeedii tagas ku dhow ma 100% tagastigeeda laakiin tagastigooda waxa lagu sameeyay customize waynu eegi doonaa qaabka loo sameeyay laakiin waxaad arkaysaa way isku dhidhow yihiin labada font
aynu soo hoos dhigano tan aynu qornay waxaan leeyahay eyedropka soo qaada si colorkeeda aynu uga qaadana tan colorkeedu white baynu ka dhignay tagastiga laakiin haddii aynu soo zoom garayno waxaad arkaysaa bida iyo bideenan lead ka tan uu ka soo yara dheer yahay markaas aan taas ma xalay right click dadna xalay create out waayo loogada waxa lagu sameeyay waa customize qaabka qoraalka tagastigu ma aha tagasta font caadi laakiin waxa lagu sameeyay customize yar aynu eekaysiino waxaan leeyahay inta ma highlight gareeyay in yar baan dheeraysiinayaa waayahay waxa kale iyaduna muhiima haddaynu ku soo zoom garayno haddaynu soo dhaweyno ayda premier waxaad arkaysaa iyo ayadeen way kala duwan yihiin ayadooda halkan curve bay ka samaynaysaa waana line toosan laakiin teenu qaabkii elta oo kale u soo eg tahay saan uga dhigno waxaan leeyahay intan hoosaan dooranayaa deedna waxaan leeyahay delete uma baahnin in choruskan inaad guud ahaan fahanto laakiin waxaan u baahannahay awoodda uu leeyahay Adobe Illustrator inuu tijaabino waayahay waxaan leeyahay deedna waxaan leeyahay labadan control J waan isku soo xidhay angle ka midaan tegayaa kan waxaan leeyahay deedna rounded ka dhig kan kaleetana waxaan leedahay rounded ka dhig ayda imika dad u fiirsato aydeena iyo aydooda imika isku soo dhaweyna ayda premier bank way isku soo dhaw yihiin ayda qaybkoodii inuu ka dhignay bida lafteeda haddaynu eegno halkan bida way ka go'an tahay bida xarafka bidu halkan ka go'an yahay sida inagu uga goyna waxaan dooranaa line deedna waxaan leeyahay waxaan leeyahay deedna stroke aan tegayaa rounded iga dhig deedna waxaan leeyahay that's it loogadii bidina waxaan ku sameynay hadaynu zoom garayno ma loogadii seeda inaynu dhigno loogada waxaan deedna leeyahay isku soo group garee loogadeeni noo soo hoos dhig waxaanu dhamaystirnay loogada Premier Bank inagoo isticmaalana softwareka Adobe Illustrator waxaad u muhiima inaynu ogaano qaabkee ayuu application-kani wax u save gareeyaa haddaynu ku noqono image-keeni qaabkii Adobe Photoshop ma save gareeyo marka laga warramayo Adobe Illustrator qaabka duwan buu save gareeyaa Photoshop waxaan tagi jirnay file deedna waxaad leedahay save as deedna formatka halkan baa laga dooran jiray JPG laakiin Adobe Illustrator kuma soo dhigayo dhowr version buu ku soo dhigayaa waa file-ka inuu ku save gareeyo waxa la yaqaan Adobe Illustrator oo sidii PSD-ga oo kale ah sida Photoshop oo kale oo hadhow tulaad dib u soo furato laakiin haddaan u baahanahay markaa waxaan leeyahay inaan ku save gareeyo images waan iska soo xidhayaa waxaan tegayaa file deedna waxaan leeyahay export deedna waxaan leeyahay export as wuxuu iginaya marka location ku save gareynayay deedna halkan waxa igu diyaarsan wax weeyaan waa formatskii kala duwanaa ee sawiradu ay lahaayeen waxaan dooranayaa JPG waa muhiim buttonkaas inaad doorato use artboards deedna waxaad leedahay all haddii page-kaagu ay aad u badan yihiin all baad leedahay haddaad dhammaan wada doonayso haddaad page by page u baahan tahayna range-kaad sheegaysa marka waxaan leenahay all deedna waxaan leenahay export waxaan leeyahay okay qaabkaasi waa qaabka loo save gareeyo file kasta oo Adobe Illustrator sidoo kaleeto waxaad ku save gareyn karaysaa PDF waxaad ku save gareyn karaysaa Adobe Illustrator saad haddaba ula socoto applicationada kale ee Adobe ay soo saarto aynu ka bixin doono mid kasta review waxaa muhiim ah inaad ku xidhnaato channel-kan oo aad subscribe gareyso channel-ka si aad ula socoto cashar kasta oo aanu soo gelino mahadsanid